Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Jubba Institute of Professionals. Kusoo dhawow Jubba Institute of Professionals waa koorsada intermediate English course waana buugani 4000 essential English words book 1 lesson 24 page 75 wana ka bilaabanayaa. Waayahay casharkana ereyga hore waxa method waa hab ayaa waxa lahaa method ama qaabka wax loo sameeyo ama wax nidaamsan. A method is the way to do something. Waa habka wax loo sameeyo. Method waa hab. A method is the way waa habka ama waa sida to do something wax loo sameeyo. One method hal hab to remember things oo aad wax ku xasuusan karto is to tie a string. Waa inaad xarig ku xirto around your finger, farta inaad xarig ku xirto. One method hal hab oo kamid ah to remember things aad wax ku xasuusato is to tie, waa inaad ku xidhaa string xarig around your finger, fartaada hareeraheeda. Ereyga marayna waxa neighbor waa daris. Neighbor daris way. A neighbor is a person waa qofka who lives near you agtaada ku nool. I like my neighbor. Dariskayga waan jeclahay because he is very friendly. Waa mid fiican. He is very friendly. Waa mid fiican oo saaxiibtinimo leh. Ereyga marayna waxa professional. Professional waxa la qof aqoon qof xirfadle ah. Professional xirfadle qof aqoon xirfad gaar ah qof ku shaqeeyo xirfad gaar ah qabto. If something is professional, it deals with work. Wuxuu ka shaqeeyaa shaqo that use special skills oo u baahan xirfad gaar. Tusaale waxaad dhigi kartaa he is a professional doctor. Waa dhakhtar xirfadle ah oo aad u yaqaan shaqada. If you want to be a pilot, haddii aad rabto inaad duuliye noqoto. If you want to be a pilot, haddii aad rabto inaad duuliye noqoto, you must have a professional training. Professional training waa inaad qaadataa tababar xirfadeed. Professional training tababar xirfadeed waa inaad qaadataa. Marka ereyga professional waa inaad wixii aqoon gaar u leedahay ayaa waxa la professional aqoon gaar leh way. Something is professional if it deals with work. Hadda ka shaqada use special skills oo isticmaasha xirfado gaar. If you want to be a pilot, haddii aad rabto noqoto duuliye, you must have professional training. Waa inaad qaadataa professional training waa inaad qaadataa tababar xirfadeed waa inaad qaadataa. Ereyga marayna waxa profit. Profit waa faa'iido. A profit is the extra money. Waa lacagta dheeriga you make aad samayso when you sell something marka wax iibiso. I made a small profit. Faa'iido yar baan ka sameeyay from selling my old clothes. Marka dharkayga duug ahaa gaday. Ereyga marayna waxa quality waa tayo. The quality of something is how good it is. Waa sida u fiican. The quality of his car, tayada gaarigiisa is very good. Aad bay u fiicantay. Ereyga waxa shape waa muuqaalka shayga sida afar gees, wareeg, wixii la mid ah, saddex gees. A shape is a symbol form waa qaabka shay u egyahay like a square or circle. Sida square wax afar gees or circle wax wareegsan. The triangle saddex geesku is my favorite shape. Waa shape-ka aan ugu jeclahay ama qaabka aan ugu jeclahay. Ereyga waxa space waxa la meel banaan ayaa waxa la space. Hawada sarana waxa la space baa la yiraahdaa. A space is an empty area. An empty area waa meel banaan. I don't have much space. Ma haya meel banaan for things aan wax dhigto in my small house guriga yarka. Ereyga marayna waa stair. Stair jaranjarta la. Stair waxa la jaranjarta. Stairs baa badan la. Stairs are the things that I used to go up in a building. Marka dhismaha la fuulayo meesha la raaco la jaranjar. You can take the stairs. Jaranjarta ayaad u raaci kartaa to the second floor dabaqa labaad. You can take the stairs. Jaranjarta ayaad mari kartaa ama raaci kartaa to the second stairs dabaqa labaad. Second floor waan ka wadaa. Second floor dabaqa labaad. Ereyga waxa symbol waa calaamad. Symbol maxaa la calaamad. A symbol is a thing that stands for something else. Shay u taagan baa calaamad. This symbol calaamadan tells us waxay noo sheegaysaa that we cannot smoke inaan sigaar ku cabi karin in this area meeshan. Ereyga waxa thin waxa la khafiifa ama caata. Thin waxa la wax khafiifa ama caata. If someone or something is thin, shay hadduu khafiif yahay, they are not fat ma buurno. The man was thin, ninku wuu caato ahaa because he didn't eat much. Wax badan muu soconin. Aad baad mahadsantihiin. Please read the short story sheekada gaaban akhri and do the exercise. Some exercise from page 76.